سلطان سمتر سلطان إبراهيم جامع سمتر سلطان دول أوديك يجا جودة سلطان موسى وحويا سلطان إبراهيم عبد الريراش يا صلاحين تدمان عقاشة أضيادا دليردا وقويهندا دمانتي واحد نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة كل هذا البدن ملئ مركور آديات بانين يقوم هادنا إن أدنى سوق يبقشان حفلة دن أنكم معموسنا سلطان كدا ذير به جيريدو كعصب تهاي ماركتا أن أوضا قيريسن هاي إن أدماركتا حفلة دي سيعش شرف دي سين أدنى سوق يبقشان آديات بانين يقوم هادنا آديات بانين يقوم هادنا إن أنت مركان كيماتو كل يانو لبا قضبهم بان لهاي horta suldaankeennii dhintay Allah u naxariisto iyo waalidkeennii iyo dadkeennii dhintay oo isagu ugu dambeeyay Ilaahay ha u naxariisto naxariistii janna Ilaahay ha siiyo samir iyo iimaanna Ilaahay ha inaga siiyo suldaankeennii weynaa qoyskiisii iyo eheladiisii iyo dhammaan Ilaahay samir iyo iimaan iyo dhammaanteen bay Ilaahay ha inaga siiyo intaan markaan ka imaado nimayow in yar qodob kaliya markaan ka hadlo waa kii suldaanku tugriga ku dhintay habeenkii meydkiisu tugriga yaalay iyo haddana sagaalnimadii la inoogu keenay gebile xabaashi wax kale dadku isma weydiin ninkii jigjiga ka soo dhaqaaqay kii saylac ka yimiday kii lughaye ka yimiday wax kale la isma weydiin sacsidiis iyo sidii loo aasilaam baa la isweydiinay suldaankuna cid booskiisa u diidasa iyo cid ku haysan karta iyo cid shaki gelin karta midnaba ma jiro lagama taan ninna kuma jirto laakiin waargeerida aan ka dambaysiino iyo ma inay qolada bariguba way israacisayaan horta qodob farsamo la isku hayo wax alla wax kale la isku hayo ma jiro waxa weeyaan waxaan ballan qaadayaa anigu waxaan ballan qaadayaa suldaan samatar abtina waanu oo maxadcasaa kale waan ka xigaa intaan noolahay inaan gacanta isaysan doono intaan noolahay inaan gacanta isaysan doono ayaan ballan qaadayaa cid shaashayn karta booskiisana inaanay jirin waxa weeyaan waxaan leeyahay odaygaa dee samaroon baa inala fadhiya magacii maxadcase ee isagu suldaanka u ahaa baad meesha ku fadhidaan waar waxa weeyaan waa in wanqashiisu ay noqoto wanqashiisu waa in loo diyaar galoobo wanqashiisu waa inay noqoto ta ugu weyn waa inay noqoto waxa weeyaan ummaddu intay kala taalo ku galbeed guntii yaallo oo ragga halkaa ka soo jeeda ka mid yihiin oo ilkaha qorqoran iyo ku bari guntii yaallo oo aryiile inta u dhaxayso ninkaasi suldaanuhu uu xukumaa waa in wanqashiisu miisaan waa inay yeelato waxaan leeyahay magacayaga halkaa jooga reerka maxadcase la yidhaa waa inuu dibad iyo gudo meel kastuu joogo wanqal u qalanta oo tii Ibraahim aan u dhignay suldaan maxamed u dhignay oo kala u diyaar galooba kana soo qayb gala waqtigana waa qaban doonaa salaamu calaykum waraxmatullahi ilaahay waxaan baryayaa naxariiso janna nabigii mustafa mukhtaara inuu ilaahay la xidhiidhiyo Ibraahim jaamac jannatul firdaws inuu ilaahay ka qayb geliyo suldaankii guud ee dalka iyo dadka aniguna walaalaan ahayno war muxuu ku milmay baa la odhan jiray ilaahay jannadii ha geeyo sidaan doonaynayna sidanay hayde alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadalka iyo wixii la yeeli doonana suldaan abshir baa dhameeyay wasalaamu calaykum waana la fadhiisan doonaa insha allahu oo la sii ballaadhin oo si fiican looga wanqali suldaan samatar haddii ilaahay ka dhigo suldaan samatar dhaxalkii buu lahaa nin waliba kursigii aabbihii isagunbaa ku fadhiista ilaahay ha ku baarigo yaan leenahay maalinta dambe iyaana khudbada waaweyn ka jeedinaynaa intii dhimatayna allah u naxariisto ee suldaan Ibraahim jaamac samatar waxaan leenahay ilaahigay marti la jecel yahay ha ka dhigo naxariista janna allah siiyo qabrigana allah waasiyo
waxaa kale oon soo dhowaynaynaa suldaan samatar ibraahim jaamac yaan isna leenahay suldaan soo dhowow ilaahay ha kaa dhigo ku beddelkiisii gala oo ka fiicnaada oo hoggaan fiican noqda oo ummadda reer somalilan iyo ummadda beesha iyo tasamaroonba waxtara allah ha kaa dhigo ku diintiisa iyo dalkiisaba waxtara allah ha kaa dhigaan isagana ugu ducaynaynaa inaka abti baanu nahay ducada abtigana kuwa la aqbalay ka mid tahay insha allah waxaanu leenahay isagana ilaahay ha ka dhigo ku la aqbalo intaa un baan kolley ku dari lahaa ta kale waxaan la qabaa sidii uu suldaan abshir sheegay yaan taa kalena la qabaa oo intaasaa nagaga filan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa kaloon halkan aad ugu mahadnaqaynaa oon halkan ka salaamayaa salaadiinta oo hoggaanka u yahay suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel suldaan abshir oo casuumadda bixiyey oo halkan maanta martiqaadkan qiimaha badan leh ee uu ku marti qaaday suldaan samatar ibraahim jaamac samatar iyo beelihii maxamed case martiqaadka ugu bixiyeyna aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloona aad u soo dhowaynaynaa fikirka fiican ee uu halkan ka sheegay ee ku saabsan caleemasaarka iyo qaybta maxadcase barnaamijka u yaalla maxadcase kaana aad baan ugu raacsannahay 20 sano ayaa suldaan ibraahim jaamac samatar soo agjoogno soo wada shaqaynaynay waxaanu ka wada qayb galay shirar aad u fara badan waxaan ka wada qayb galay xaflado fara badan waxaan ka wada qayb galay jaar baanu xataa ugu dambeyntii ahayn samatar isagoo yaroo caruur oo dugsiga hoose ah ayaan jaar ahayn suldaan ibraahim jaamac samatar oo 24 saac wada soconaynay aqalkaygu isku mid bay ahaayeen nin wuxuu ahaa maaragtay aad u shooshalo furfuran nin wuxuu ahaa ilbaxa wuxuu ahaa nin mutacallina wuxuu ahaa nin waaya araga wuxuu ahaa nin ku dhacde oo go'aan qaata oo ku dhaca buu ahaa go'aan qaadashada iyo ku dhiciduna waxay ka mid tahay maqaamyada madaxtinimaday ka mid tahay sidaa awgeed aad iyo aad baan ugu ducaynayaa ilaahay ha u naxariisto weli geeridii baa nagu taalla weli waa naxsannahay inanka samatare inanka iyagaana waa soo dhowaynayaa hadduu suldaan abshir yidhi abtaanu noo baabar muuse weeye aniga laftaydu dameereley baanu abtaan hoosaanu sii ahay sidaa awgeed waan soo dhowaynayaa intii waaya aragnimo iyo cimri aan dheernahayna waxaan ballan qaadaynaa inaan ku hoggaamin doonno oo aan ku daadihin doonno oo aan gacanta qaban doonno ibraahim jaamac samatar ilaahay u naxariisto waxaan leenahay jannadii firdowsana allah ka waraabiyo intaasi waa tacsidii waxa weeyaan halkan xafladda sharafta leh ee qiimihiya qaayaha badan leh ee haddii ilaahay yidhaahdo aan isugu nimidnay ee suldaanka da'da yar leh aan ku caleemasaarayno haddii alla ka dhigo waxaan leenahay alxamdulilaah ilaahay baa mahad leh marka intaasi haddii alla ka dhigo waxaan leenahay waan aqbalsannahay waananu magaranaysaa haddii alla ka dhigo garab taaganahay had iyo jeerna waan isgarab taaganahay haddii ilahay yidhaahdo waan salaamayaa waananu mahadnaqayaa aqoon-yahanka dhammaan inta ka soo qayb gashay ogeysiinta iyo xafladda iyo isku waranka aad baan ugu mahadnaqaynaa isbarashada suldaanka in badan baan aqoon weyna yar buu ahaa suldaan abshir oo abti u ah ayaa soo hortaagay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa taa waannu filaynay inta yar waan gaabinayaa hadalkee aynu ku kulannay aaska ahayd wadatashi kamaynaan lahayn meella maynaan wada deganayn haddii alla yidhaha nin waliba aaskuun buu yimid wixii meeshaa ka waafay dadka waan ka raaligelinaynaa wixii suldaan abshir sheegay uu ballan qaaday ee salaadiintu isku raacdayna wakhtigeeda ayaan sugaynaa suldaankana sidaa loogu duceeyey suldaan ibraahim jaamac samatar ilaahay idamkiisa allah u aqbalo jannatulfirdowsa allah ka waraabiyo suldaan samatar suldaan ibraahim jaamac samatar oo caawa layna hor keenay sidaa suldaan
samatar aad u qaadateen aabbihiina hore aad ugu qaadateen degta ugu qaadateen idinka ridi maynee degtiinna ha fuushanaado gadabuursiyo dhan baanuu dhiibnay bah baanuu dhiibnay ku yar iyo ku weyn wixii aqal ee dhaqan iyo walaalnimo aannu wadaagno suldaan samatar wakaa waa suldaan samatar suldaan ibraahim suldaan jaamac idinku wareejinaya sidii aad ballan qaadeenna gogashaan ku sugaynaa khayr allah siiya nimankaa weliba aniga ducaygaga sii dhacday suldaankaa u horreeye waxaan leeyahay suldaan abshir baa u horreeye sidii uu yidhi xafladdana isagaa qabtay sidii uu yidhi umaan qaadannay qalbigaan ka qaadannay niyadaan ka qaadannay runtii waa madal waxa weeyaan maxay ahayday aad u kooban laakiin haldoor qiimo iyo qaayale kulmisay marka hore maxay ahayday waxaanu tacsi yani aanu u diraynaa suldaankeenii weynaa ilaahay ha u naxariisto cid maxay ahayday adduunkan joogaysa hadday jirto suldaan ibraahim baa joogi lahaa adduunyada waddamada waxa ka taliya madaxweyneyaal baa ka taliya isagu bulshada uu madaxa u ahaa 4 waddan oo dadka Soomaalidu ay degaan ayuu maxay ahayday suldaan u ahaa beel kale oo beesha shanaad la yiraahdo qurbaha joogtana suldaan buu ahaa laakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo kii maxay ahayday uunkan ugu khayrka badnaa ayaa adduunyada ka tagay suldaankeenii allah u naxariisto naxariistii janno maxay ahayday ilaahay ka waraabiyo maalin khayr qabta ayuu dhintay adduunyada oo dhan way u ducaysay marka ilaahay ducada ah uu aqbalo gaayada ugu dambaysa qofka bini'aadanka uu ku riyoodaana waxa weeye inuu jannatul firdaws ala u galo ilaahay jannadaasi ha geeyo aad baan inii bogaadinaya aad baan ugu faraxsanahay ka soo qayb galo arinta suldaan abshir deni walba waxbuu sheegtay suldaan abshir dawah brodaagi suldaan abshir waa brodaagi soo garmays waxaan xalay markuu ila soo saaka salaad subax ila soo hadlay waxaan ku iri maxaa tiri markaasuu iri sidaasaan markaasuu aan maxaa tiri sidaasaan ku markaasaan ku dahab rodag baan warba ku iri caaw saaka ya waxa weeye nin aniga yiri rag iska reeb anigu suldaan dhawal ahaan xilan cidna ka saareen baa iga saara suldaan samatar iyo intuu hogaaminayayba intay naftaydu baaqi tahay waxaan isku dayayaa haddii ilaahay yidhaahdo wax alla wixii aan qaban karo inaan qabto ree suldaan ibraahim jaamac samatarna warkooga baddaa samatarna warkiisa baddaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin arrinta waxaa go'aamiyey suldaan abshir siduu xafladda u keenay buu ku go'aamiyey siduu u ballan qaaday sida maxal caso ugu bandhigay buu ku go'aamiyey sida uu yiri muddo u qabtay waxa way gogol iyo gogol isku meeyay ku bayaamiye anna qaybaan ka ahay salaamu calaykum waraxmatullaahi